cali waxaa lagugu eedeynayaa dembiga ah dil kas ah iyo dhaawac adigoo si bareer ah u dilay marxuum cabdirasaaq yuusuf guure oo ahaa wade mooto bajaaj isla markaana aad dhaawacday dhibane cali xaashi mataan dembigaas oo ka dhacay degmada hodan taariikhdu markay ahayd 8 bishan shanaad 2019 halkan waxaa ka furmay eed ka dhan ah dable booliis cali maxamuud maxamed waxaa gacantiisa ku baxay Allah u naxariistay cabdirasaaq yuusuf guure 8 bishan waxa uu kamid ahaa wadayaasha mootooyinka bajaajta waxa sidoo kale halkan jooga dhibane cali xaashi mataan oo isna ahaa sarifle ku dhaawacmay xabad dhex martay marxuumka marqaatiyaal ay shaqo wadaag ahayeen eedeysanaha ayaa la dhageystay iyo baarihii kiiska si isku mid ah ayaa loo dhaariyay waxaana dhammaan dhinacyada dacwadda ay weydiiyeen su'aalo habraaca sharciga ay tilmaamayaan may Soomaalinimo iyo booliisnimo iyo shaqadeedii la idmaday waay muumin xuseen cabdullaahi ku-xigeenka xeerlaaliyaha ciidamada qalabka sida ayaa tilmaamay inuu eedeysanaha kulmiyay dhammaan astaamaha tilmaamaya dil ku talagal ah dembiga halkaas ka dhacay waa dembi ulakac markii la yiraahdo waxa la fiirinaa kow qofka falka geystay ma qof xanuunsan oo waalan oo waxba loo qorina mise waa qofayo haddaba mudana gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waxa xaqiiqa in eedeysan cali maxamuud axmed uu yahay qofayo maskax ahaan jir ahaan u dhameystiran oo wax xanuuna aan qabin oo si mataqaana kasdar yani aan mataqaana waali wax uga dhaceen oo san ahayn uu yahay qof isagoo fiyo fal geystay qofayo abu aha aalad wax disho isticmaalay waxa ka dhashay mataqaana oo ka cad ka yimid halkaas dhimasho xeerlaaliyaha ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda weydiistay in lagu xukumo ciqaab u dhiganto qodobada ay ku soo eedeeyeen kiiska sida uu xeerlaaliye igu horreeyay cadeeyay marka la eego markhaatiyaalkii maxkamadda la hor dhageystay qiraalkiisii iyo cadeymii aan maxkamadda hor keenay waa dembi ku cad in uu kas u dilay waxa inta dheer nin booliis ahaa oo ummadda amnigeedii nabadgelyo lagu aaminay isagu inuu dilo ku kibro waa xadaaf waa xaraan canshuurtii laga qaaday shacabka ay ku noolyihiin in dad baa qof baa saaka soo shaqatay mooto bajaaj wata ilmu u soo shaqatay reer meydkooda in loo geeyo xaq uma laha oo waliba kii mushaarka ay siinayeen uu dilo waa nasiib darro shacabka haysata sidaa darteed waxaan maxkamadda weydiisanayaa in la ciqaabo oo dil toogashaa lagu ciqaabo abukaate xasan cabdulla farayare ayaa ku dooday in eedeysanaha uu ku jiro waajibaad qaran sidaas darteed uu maxkamadda weydiistay inay bixiyaan magta eedeysanaha taliska booliiska waajibkiisu gudanayay mise hooyisu u shaqeynayay waajibkiisu gudanayay sidaa darteed maxkamaddu waxaa codsanayaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay ku xukunto diyadii ninka ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa in lagu xukumaa diyadii marxuum cabdirasaaq xaashi guure diis in ciidanka booliiska Soomaaliyeed lagu xukumo kabacdina askariga loo aqoonsado dambiile aan loo aqoonsanin nin waajibkiisa gudanaya loo aqoonsado ka qaybgalayaasha dhageysiga dacwadda maalintan waxa ay ahaayeen ciidamo laga keenay fadhiyada iyo goobaha xaqiijinta baraha amniga caasimadda waxa ay u ahayd 10 waano ugu filan inay dhageystaan natiijada ciqaab ee ka dhalan karta daadinta dhiigga muwaadin aan waxba galabsan gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda oo qaatay saacado badan dhageysiga garmaqalka la xiriira eedeysane cali maxamuud axmed intaas ayuu ku dhameystiran yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonto Allah u naxariistay waxa mootadan wada ka ahaa cabdirasaaq yuusuf guure oo ahaa wiil dhalinyaro ah waxa isgoyska tarabuunka ee degmada hodan ee gobolka banaadir ku diray Allah u naxariistay dabla ka tirsan booliiska Soomaaliya oo halkaas ilaala ka hayay 8 bishan aynu ku jirno ee sanadka maxkamadiintiisa darajada koowaad ayaa maanta halkan lagu soo gabagabeeyay Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho